gabar ayaa ku bixisay 8 milyan oo dollar raashin badan oo gaari buuxa ah kadibna waxay gebi ahaanba ka madhisay supermarketkii ma ahayn inay isu diyaarinayso masiibo weyn halkii waxay awood u lahayd inay si xor ah ugu safarto waqti ay macluul daran ka jirtay gabartu asal ahaan waxay ahayd qof toos u baahiya muuqaal intii ay ku jirtay mid ka mid ah baahintii safarada bannaanka waxay aragtay iftiin qarsoon oo cirka ka tallaabaya si ay u ogaato halka uu ka yimid iftiinkaasi waxay raacday jihadiisa ugu dambayna waxay tallaabo ku gashay goobo wareeg ah waxay garan weyday in goobtaasi ay ahayd marin lagu aado waqtigii 80meeyadii isla markiiba waxaa cirka u jiiday iftiin dahab ah markay soo toostay waxay isku aragtay guri duug ah isla markaas gabar yar ayaa soo gashay gabadha yar waxay isla markiiba gacmaha ku duubtay iyadoo ku dhawaaqaysa walaashay cod dheer gabartu waxay u qaadatay in ilmaha ay ku khaldan tahay qof kale laakiin markii gabadha yar ay soo bixisay xididdo geed oo ay u soo bandhigtay cunto ahaan ayay xasuusatay wax walba oo xalay dhacay markaas ayay fahamtay in runtii ay dib ugu safartay waqtiga isla markaana ay dhex gashay macluul aad u daran qorshe geesinimo leh oo taariikhda wax uga beddelaya ayaa isla markiiba maskaxdeeda ka samaysmay waxay doonaysay inay ku noqoto waqtiga casriga ah oo ay cuntooyinkaas u keento xilligan gaajada intaysan bixin waxay walaasheed yar siisay shukulaato si ay gaajada uga yarayso laakiin wiilka ay dhashay eedadii labaad ayaa arkay eedadii labaad ayaa isla markiiba shukulaatada ka qabsatay iyadoo ku qaylinaysa labada walaalo inay si qarsoodi ah cunto u cunayeen kana dalbatay inay keenaan dhammaan wixii ay qarinayeen gabartu markaas ayay garatay in tani ay tahay eedadii labaad ee milkiilihii asalka ahaa iyadu waxay ahayd tan urursanaysay dhammaan raashinka qoyska kana dhigaysay labada walaalo inay maalin walba gaajoodaan gabartu way ka carootay waxayna ku tilmaantay haweeney qalbi adag eedadii labaad ayaa aad u xanaaqday waxayna gacanta u taagtay inay dharbaaxdo balse gabartu ayaa dhulka ku tuurtay walaashii yareed waxay dareentay in walaasheed wax ka duwan yihiin sidii hore eedadii labaad iyaduna way shakisay waxayna bilowday qaylo iyo dhulka ku rogrogasho madaxa tuulada ayaa yimid kadib markii uu maqlay buuqa balse eedadii labaad waxay ku eedaysay gabadha inay weerartay madaxa tuuladu wuu rumaystay hadalkeeda wuxuuna gabadha ku amray inay raaligelin degdeg ah bixiso haddii kale raashinka bil kasta waa laga jari doonaa gabartu waxay ku raacday talada madaxa tuulada balse eedadii labaad way diiday maadaama ay hore u qaadatay dhammaan raashinkii walaashii yareed ayaa u sheegtay madaxa tuulada wax kasta oo ka dhacaya guriga iyadoo sheegtay in eedadu aysan u ogolaan inay cunaan madaxa tuuladu aad ayuu u xanaaqay wuxuuna eedadii ku canaantay qalbi adag wuxuu ku eedeeyey inay urursatay raashinkooda oo xitaa ay doonaysay inay gaajo ku disho si kastaba eedadii labaad way ku adkaysatay iyadoo tiri iyadu lafteedu way gaajaysan tahay mana danaynayso cid kale qayladaas waxay soo jiidatay dad badan oo tuulada ah gabartu waxay isla markiiba soo jeedisay in qoyska la kala diiwaangeliyo madaxa tuuladu wuxuu ku booriyey inay si fiican uga fikirto maadaama kala tagu keeni karo inaysan helin wax raashin ah laakiin gabartu way ku adkaysatay waxayna ballanqaaday inay walaasheed siin karto nolol ka wanaagsan kadib waxay ka dalbatay eedadii labaad inay soo celiso jijintii hooyadood haddii ay diiddo waxay ku hanjabtay inay dacwad geynayso eedadii labaad isla markiiba way ka noqotay iyadoo iska dhigaysa inay keliya u haynaysay si ammaan ah kuna dooday inay iibin doonaan si ay cunto u helaan gabartu waxay ku jawaabtay inaysan u baahnayn inay iibiso jijinta si ay cunto u hesho eedadii labaad waxay u qaadatay hadal madhan waxayna ku tijaabisay inay keento 10 rodol oo qamadi ah ka hor inta aan madowgu dhicin haddii kale jijintu iyadaa iska leh dadkii tuulada oo dhan waxay u arkeen arrin aan suurtagal ahayn balse gabartu way aqbashay iyada oo aan ka labalabayn waxay tiri haddii ay keeni weydo 10 rodol oo qamadi ah jijintu ha noqoto midda eedada xitaa raashinka bil kasta way ka tanaasuli doontaa haddii ay keento eedadii waa inay u ogolaataa inay guriga ku noolaadaan kiro la'aan isla markaana hortooda ku raaligelisaa eedadii labaad waxay u qaadatay in gabadhu been sheegayso sidaas darteed way ogolaatay gabartu waxay markaas u dhaqaaqday marinkii safarka waqtiga waxay si degdeg ah u raadinaysay waddo ay ugu noqoto waqtiga casriga ah iftiin dahab ah ayaa ku wareegay waxayna isla markiiba ku noqotay waqtigeedii waxay si toos ah ugu carartay supermarketka waxayna bilowday iibsi ballaaran waxay madhisay qaybtii cunooyinka fudud kadibna waxay ku shubtay dhammaan qamadiyadii iyo raashinkii gaarigeeda waxay ogeyd inay ku laabato tuulada ka hor inta aan madowgu dhicin markii habeenkii yimid eedadii labaad waxay ogaatay in gabadhu weli imaan waxay u qaadatay inay baxsatay markaasay aragtay sanduuq yar oo ku jira gacmaha gabadha yar waxay ku eedaysay inay wax haday waxayna ka qaaday sanduuqii balse waxay ka heshay sawir keliya dadkii tuulada ayaa ku canaantay inay mar walba dadka ku eedayso si aan xaq ahayn iyadoo aragtay sida sawirku muhiim ugu yahay gabadha yar eedadii labaad waxay soo bixisay heshiis iyadoo ku tiri haddii ay farteeda saarto sawirka waa loo celinayaa gabadha yar way diiday waxayna tiri way sugi doontaa walaasheed eedadii labaad waxay hubtay in gabadhu aysan soo laaban doonin maadaama 20,000 oo rodol oo qamadi ah ay ahayd arrin aad u weyn waxay ku cadaadisay madaxa tuulada inuu saxiixo natiijada heshiiska madaxa tuuladu wuxuu rabay inuu waqti siiyo gabadha balse cadaadiskii dadka awgiis ugu dambayn wuu saxiixay wuxuu ku yiri gabadha yar inay aqbasho khasaaraha balse iyadu si adag ayay u rumaysnayd in walaasheed soo laaban doonto eedadii labaad markay aragtay sida ay u adkaysanayso waxay isku dayday inay ku khasabto inay farteeda saarto nasiib wanaag gabadha yar way iska caabisay waxayna qaniintay eedada taasoo siisay waqti dheeraad ah eedadii labaad aad ayay u carootay waxayna dadka ku boorisay inay ku qasbaan isla daqiiqadaas gabartii ayaa tuulada ku soo gashay iyadoo wadata gaari buuxa oo qamadi ah